Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarta kulligiina kusoo dhawaada videogan waxaa idinku tusin doona sida loo fix gareeyo problemkan. Dad badan oo waxaa jiro ka sheegtay errorkan ee arkaan, marka su-aal inaan isweydiino waaye, maxaa keeno dhibkan? Dhibkan waxaa keeno waxyaalo badan oo ka mid ah corrupt disk iyo misconfigured files. Corrupt disk waxaa waaye faylasha diskigaada ku jiro systemka oo corrupt noqday, ama faylal systemka u baahan yahay oo wax laga bedelay. Midda labaad waxaa waaye systemka oo upgrading ku sameysid, oo yacni u bedeshid systemka hore mid ka weyn. Waxaa laga yaabaa systemkaada inuu support gareysnayn ama faylashi asagoo wado in uu damo. Waxaa kaloo dhici karto in hard drive-kaada meelal ka mid ya sectors qayb ka mid in corrupt tahay. Waxaa kaloo keeno loose cables wax la dhaho, fiilooyinka oo hard drive-ka ku xirma oo dhibca keenaan problemka sida ujeediin. Marka sida ujeediin hadartaan waxaa waaye VMware Workstation ku sameyneynaa tutorialkan sida ujeediin. Marka waxaa idin tusaa boot MGR-ka meel uu ku jiro. Haddaa isweydiino dadka qaar waxay dhahayaan waxaa waaye maxaa la dhahaa boot boot MGR muxuu taraa? Haddaa isweydiino boot MGR waxaa waaye wuxuu saacideeyaa systemka inuu soo kaco markuu computerka aad shidid. Haddii boot MGR programka la dhaho uusan lahayn computerkaada Windows ma shaqeynayo. Wuxuu u sahlaa Windows in uu dhaqsadii ka soo kaco hard drive-ka. Marka sida ujeediin hadartaan desktop-kaygu prepare gareynayaa. Markaa desktop-ka tago waa clean machine sida ujeediin. Waa idin tusaa meeshuu ku jiro faylkaas. Kadibna waa delete gareyneynaa. Waxaa isku dayeynaa siyaabo badan aan ku soo celin karno. Dadka qaar waxaa laga yaabaa inay isdhahaan hard drive-kaygi ma halaabay, computerkii ma u dhamaatay, systemkayga ma wax ka khaldan yihiin. Dadka qaar xataa waxa arki dhahayo markaa duubeysid ay kugu dhacdaa. Way dhacdaa laakiin markaa duubeysid maaha markasto. Marka qaar waxaa dhacdo oo iska isticmaalaysid computerkaada in subaxi aad damisid aad dhahdid shutdown, subaxi aad soo kacdid computerkii oo ku weydiinayo dhibka problemka halkan hadartaan uga jeedno. Sida hadda halkan uga jeediin problemkan ujeediin waa ku ridaynaa computerkan. Waxaa idin tusaa sida online-ka ani waa ka raadiyey laakiin waa ka waayay meesha oo boot MGR-ka uu ku jiro. Marka waqti badan markaa siiyey kadib oo ka raadiyey. Dadka qaar waxay ku dhahayaan wuxuu ku jiraa system 32 uu ku dhex jiraa meel ka mid wuuna qarsan yahay, waa hidden. Marka waa raadineynaa hadartaan waa idin tusinaa. Adinkana waxaa rabaa inaad practice gareysiin workstation-kan. Soo download gareysta kadib Windows 7 ku shubta. Kadib waa practice gareyneysiin. Qof kasto yuusan ku dayin systemkiisa oo caadiga u isticmaalo oo normalka u isticmaalo yuusan iskugu dayin. Marka waxaa rabaa inaad backup ka bixisid systemkaaga. Haddaa ku dayeysid hadhowti inuu xataa lahaadaa laga rabaa restore point xataa inuu lahaado. Marka ujeediin updates uu dhahoyaa. Waa sugeynaa intuu updates ka dhahayo. Shutting down uu dhahoyaa. Markaa isku dayeysid systemkaada normalka haddii aad rabtid inaad ku fiirisid, fadlan waxaa ku dhihi lahaa backup kala bax faylashaadii. Haddii faylashaada ay lumaan aniga wax kuma lihi. Waxaa kaloo sameysaa restore point inuu leeyahay computerkaada fiiri intaadan sameynin. Haddii ay sidan kugu dhacdana inaa haysatid waaye Windows 7 ama Windows Vista. Haddii Windows 7 aad haysatid iyo wixii ka hooseeyo. Marka Windows 8 iyo Windows haddaa haysatid Windows 10 waa isku midkii. Waa the same. Windows 10 iyo Windows 8 waa isku midkii. Wax kala duwan yihiin wax yar waaye. Marka waxaa ku dhihi lahaa inaad soo gashatid
workstation-kan ama waxaa isticmaashaa open source-ka VirtualBox isticmaal Windows 7 soo gasho Windows 7 xataa ma u baahno activation soo download gareey kadib inta kusoo shub waxaa sugaynaa intuu intaan oo ka install gareynayo sugaa sida ujeedin videogan inuu dheeraada laga yaabaa laakiin waa jarjara insha Allah sida u yaraado marka inta videogan ku jiro VMware-kan wax ma laga jaraayo booting time-kiisa waxaa rabaa dadka dhan inay arkaan in aan yacni wax dhan aan ka boodin si oo qof kasta uu u fahmo fadlan step by step waxba ha ka boodin videoga waxaa idin tusinaa siyaabo badan hal siyaabo maahin siyaabo kastana waa baraaweynayna computerka waa shideynaa waa diminayna waa shideynaa inuu noo shaqeeyo in kale waa baraaweynayna marka koodadka xataa waxaa waaye waa idin tusinaa sida egin koodad qaar isticmaalaynaa waxaa lagaaga baahan yahay inaad haysatid cajalad oo Windows 7 ama Windows Vista inaad samaysid ama Windows 7 repair disk online kasoo download gareyso ama meelaha torrentiga haddii meel ka tahay membership oo website ka tahayna waa kasoo download gareysani kartaa wax yar waxaa sugayaa intuu dhameynayo videogan waxaa rabaa inay dadka dhan ka bartaan qof kasta uu practice gareeyo problemkan qof kale hadduu ku arko si uu u saacideeyo faylashana systemkeena hadeertan sida ujeediin software qaar oo ka mid ay yihiin WinRAR lagu install gareynaya ku jiro marka software kala ku dareynaa faylal la sameynaynaa si hadhowti u fahno in faylasheena ay soo laabteen ama wax ay isbedeleen faylal sameynaynaa desktop ka dhigaynaa waxaa sameynaynaa folderyaal sameynaynaa si u fiirino inay waxayna baxeen ama inay wali faylasheena iyo waxayna ay yaalaan soo akhyaarta kulligiina waxaa idin dhihi lahaa hadda sida ujeediin intuu marwayaa net frame uu gelinayaa markuu waxaan dhameeyo idinku soo laabana videoga inuu dheeraado marabi marka waxaas arkaynaa markii uu dhameeyo sida ujeediin hadeertan waan soo laabanay Windowski waa kana shaqeynaya Windows 7 waaye waa VMware workstation sida kor uga jeediin marka hadeertan shaqadeena bilaabeynaa haddii aad tagno dadka qaar waxayna dhaheen wuxuu ku jiraa Windows haddaad tagtid kadibna aad sii tagtid system boot helnay akana faylkan miya isku dayna bal anaa sida u raadinayo marba fayl u sameynayay waxaa waaye waa ka dhex waaye meeshan dhan waa ka dhex waaye laakiin waxaa waaye waa trick waa dadka way trick gareeyeen ileen dadka waxay ogyihiin meeshan inay imaanayaan marka meel uu ku jiro hadda idin tusiyo adiga xataa waa la yaabaysiin marka sidaa ku aragno waa hidden file waaye oo systemka ka mid ah waa kana hidden file waaye marka sidee ku arkaynaa waaye intaa tegaynaa kowda hore starta tegaynaa kadib control panel aa tegaysaa haddii kale intaa tegaysaa control panel aa qoraysaa hadduu inta aad ku arkaysid soo soconaynaa systemkaada hadduu sidan yahay intaa tegi kartaa midka artida dhihi kartaa inta hadeertan category badan ma lahan laakiin kuwaaga waxaa laga yaabaa categoriga inuu badan yahay laga yaabaa inta haddii kale ku dhufanaynaa sida ujeediin folder options haddaa ujeediin waa idin weyneynaa wax yar large icons aa dhahaa sida ujeediin meeshan waa kana folder options haddii inta aad qoro folder sida ujeediin waa kana intuu soo koray folder options kana taabanaynaa kadib view waa tegaynaa waxaa dhihaynaa show hidden files folders and drive waa midkaana ujeediin labaad kadib waxaa dhahaynaa adiga kan hadeertan waxay ku tahay hadeertan hide soo mujidid operating system files ay ku tahay laakiin sidaas markaa dhahdid kowda hore way tig ay saaran tahay inaa hide protected operating systemka aa ka saartid wuxuu kuu keenaa warningkan
yes aa dhehaysaa kadib wuu ka qaaday sidaa ujeedid apply aa dhehaysaa okay aa dhehaysaa haddana waa imaanaynaa meeshaan maxaa inta ku aragtiin fileka dhan oo systemka u baahan yahay waa kana boot mgr kan waa kana sidaa ujeediin khiyaarta kulligiina si fiican ha loo fiiriyo waxaa soo okay waa ka xumaa intaa tagnay waxaa rabaa inaan hadda dadka ugu soo celiyo marka labaad intaa tagnay control panel folder option inta haddaa ku qortid folder option haddaa ujeedid restore aa dhahaa apply aa dhahaa haddana markaa inta imaadid general view aa dhehaysaa kana taabanaysaa show hidden files haddana hide operating system aa taabanaysaa yes apply aa dhehaysaa okay aa dhehaysaa kadib intaa imaanaysaa waxaad taabanaysaa marka fileka so filekan haddeertaan intaa dhiganaynaa waa kaas ku yaalaa laakiin kama yeelaa inaad delete garaysid haddaa rabtid inaad delete garaysid okay haddaa dhahdid waa kaasa wuu kaa diidaa installerka soo ma jedid trust installer permission weydiiso fasax weydiiso ku dhooyaa trust installerka so inta system file la samaysanaynaa hadhooti sida u garano inuu wax isbedelay filekan waxaa dhahaynaa folderkan waxaa u bixinaynaa applications aa dhahaynaa folderyaal badan aa sameynaa horta hore wax yar halii dul qaato hal mar text folder kana md aa dhahaa md 1 2 wax yar halii dul qaato ma qorin nambarkiina qoraba folderyaal badan aa samey raba 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 nambarada sidaa ujeediin waa kuwaasa 15 folder aa sameynaynaa iyo application folderkaas save as aa dhahaa waxaa dhahaa md.bat waa batch file desktopka dhigaa kadib waa kana saa ujeediin waa xiraa kadib run aa dhahaa waa ujeediin faylashii dhan uu sameeyey folderadii waa ujeediin 15 folder aa noo taalo iyo kan magaca u baxsanaynaa sug waxaa dhahaa casharo waa ujeediin sida ujeediin haddaa rabtiin file inaa inta ka delete garaysiin systemka file waa inaa inta tagnaa kowda hore properties aa tagnaa security aa tagnaa haddeerta haddaa idinkugu soo celiyo waxaa taabanaynaa properties left click aa dhehaysaa properties security aa tegaynaa kadib waxaa tegaynaa advanced aa tegaynaa advanced markaa tagno haddeertaan saa ujeedid read and execute bes le waa bis marka owner aa tegaynaa ownerka waa kana midkii data lagu dhahayay haddii aa delete gareyno saa ujeedid haddii aa delete gareyno trust installerka sidaa ujeediin waa kana harfaankan waa trust installer edit aa dhahaynaa waxaa ka dhigaynaa cabdiweli or administrator midkaa rabtid administrator aa ka dhigaynaa dhib maleh okay aa dhahaynaa you just waxaanu ku dhahaa okay iska dheh kadib intaa ku laabanaynaa permissionki shaqadeena weli nooma dhammaanin ya kanaa tegaynaa change permission waxaa taabanaysaa kan change permission aa taaban kartaa haddaa rabtid kadib 2 jeer aa kan riixaysaa waxaa taabanaysaa midka ugu koreeya sida ujeediin haddii aa yara dhaqsaday aa kusoo laabada haddana intaa imaanaynaa change permission aa dhahaynaa 2 mar aa taabanaysaa ama edit aa dhehaysaa midkaa rabtid kanaa 2 jeer taabanaynaa midka ugu koreeya taabanaysaa okay aa dhehaysaa apply aa dhehaysaa okay aa dhehaysaa haddana okay aa dhahaynaa haddeertaan haddii aa delete gareyno waxa dhacaya fiiriya waa delete gareynaynaa wuu delete gareysma fileka sida ujeediin kuma jiro wuxuu ku jiraa inta ku jiraa fileka waa kana marka fileka waa kana waxaa dhahaynaa empty aa dhahaynaa cannot because the file is in another dhib malahan xataa iskaga jiro so maanta waxaa kasoo qaaday adaa isticmaalaysay systemkaada cashiro iyo waxaa ku samaysanaysay waa iska imaaday waxaa dhahday
iska dhahday shutdown aniga haddeertaa restaadaa dheheenaabo restaadaa dheheenaa shutdown dhahday systemka caadiga akana wax kama qaldano sidaa ujeediin so haddeertaa markii waa kan soo mujeediin meesha dhibaatadii ka dhacday qofka meesha markuu imaado niyo waxaa lay talo computerkeygii maxaa ku dhacay asagoo fiican ka tegay marka hasdihin waa wax oo dhib badan oo ma sameyni kartid marka haddeertaan meel mooga dhaqaaqi karno haddeertaan meeshaan haddaa F8 taabano waa isku dayeynaa F8 dadka dhan waxay dhahaan F8 aa la taabtaa meesha repairing ma shaqeynayo so marka maxaa u baahanahay cajalad oo Windows u baahanay ku jiro Windows 7 Windows Vista intaa tegaynaa marka aniga waxaa isticmaalaa ISO waa isticmaalaa ISO wuu igu jiraa saa ujeediin settings haddaa tago haddaa rabti inaad kan ku sameysid intaa tegaysaa kana taabanaysaa hard drive kaa tegaysaa hard drive-kayga marka marabi inaa idin tusiyo wax ku jiro laakiin waa hide gareynaa inta wax ku jiro hard drive-kayga ISO haddaa tago Windows waa kuwaana Windows yaal badanaa haystaa sidaa ujeediin Windows midkaana soo qabsanaa kan Windows 7 kaasa soo qabsanaa open aa dhahaa okay aa dheheenaa systemkeeni waa daminaynaa inta imaanaa waxaa dhahaa power off kadib inta imaanaynaa Windows 7 ki waa kana inta imaanaa waxaa dhahaa power VMware firmware aa dheheenaa kadib waxaa aadaynaa boot CD waxaa ka dhigaynaa kow waxaa taabanaysaa calaamada blast oo keyboardkaada aad taabanaysaa kor u aadaa minus haddaa taabatid sidaa ujeedid yes aa taabanaynaa save changes waxaa taabanaysaa meesha rabtida magaada wax yar halii dul qaato reset aa dheheenaa haddana ama control haddaa rabtid inaad dhahdid control alt delete inta waxaad taabanaysaa calaamadaas falaarta leh aad taabanaysaa kadib systemkeenu isu soo bilaabay waxaa taabanaynaa keyboardka meel kamid ah taabanaynaa kadib sidaa ujeediin Windowski wuu soo kacay Windowski wuu soo kacay sida ujeediin weli wax yar waa sugeynaa actually waa wax oo raqiis ah waa qof kasta sameyn karo haddeertaan saa ujeediin cajaladii waa tanaa next aa dheheenaa next meesha install ma dheheenaya meeshaan repair ay ku qoran tahay hoosaa si fiican indhaha loogu fiiriyo si fiican ha loogu fiiriyo repair aa dheheenaa kadib wuxuu raadinaa meesha uu ku jiro systemka next aa dheheenaa kanaan ku bilaabeynaa kowda hore start up repairka ku bilaabeynaa hadduu shaqeeyo waa arkaynaa kulli stepyo badanaa idin baraa kulli waa arkaynaa so restart aa dheheenaa hadda meeshaan sida ujeediin waa bobsiina screen sida dhaqso u tagno kulli waa kuwaana wax ma haddii alaab waa kana boot mgrki meeshii ku jiraa weli haddana waa delete gareynaynaa intaa tegaynaa markaan waa bobsiina trusted installerka iska laha umudaa waa kana sida ujeediin edit aa dheheenaa kana taabanaynaa administratorka apply dhahaa okay haddana waa kana inta imaana permission imaana dhahaa laba mar waxaa taabana administratorka كل كرة تابنا أوكي apply هنا وكنا مركان حاول وبسينا طيب المكتب كويس وبسيط وصلنا مركان continue عليه هنا بعد اللي تقرينا أنا بس استخدمه وحاول أقف حاسبينه أو
oo ku jirtay inuu xaaladda computerkiisa fiicnaa oo isku dayay start repair oo laakiin u shaqeyni waayay. Haddana waa taabaneynaa sidaa ujeedid waa galnay. Next aa dheheynaa repair aa dheheynaa yaa la iloobin repair install ha dhihin repair aa dheheynaa. Sidaa ujeediin markii koowaad successful aa noqonay, markii labaad haddana restore point waxaa dheheynaa restore aa dheheynaa. Computerka saa ujeedeen waxaa waaye waa computer saa ujeediin workstation-ka dhihi lahaa waxaa waaye waa mid cusub oo hadda aan install gareynin. Marka restore point dhan ma laha, waxaa laga yaabaa kaada inuu lahaato oo kugu caawiyaa laga yaabaa. Marka waa kana repair aa dheheynaa haddana waa wadeynaa wax yar aa sugeynaa intuu ka keenayo installation-ka. Saa ujeediin next aa dheheynaa waa kana restore point-igaa taabaneynaa. Next aa dheheynaa restore point wuu leeyahay waa kana critical kan ugu celi bal kanaa rabnaaye. Next finish dheh. Yes sida ujeediin restoring files uu dhahoyaa. Restore point-iga ma shaqeeyay. Restore point-iga ma shaqeeyay. waa kana sida ujeediin finalizing uu dhahoyaa oo dhameeyay. Restart aa dheheynaa marka waxaa laga yaabaa inuu computerkeeni wax ma taabaneyno cajaladda weli waa u baahannahay. wax ma taabaneyno waa noo shaqeyn waaye. Sidaa ujeediin system restore point-iga waa noo shaqeyn waaye. Marka koraa tegeynaa waxaa waaye waa ku laabaneynaa cajaladdeeni. Taabo meel keyboard-ka ka mid haddana waa ku laabaneynaa. haddana videogan waxaa rabaa qof kasta inuu barto oo isku dayo asaga. fadlan ha iloobin inaad subscribe dhahdid, comment aad ka bixisiin. casharada haddaa rabtiin casharo waa soo sameynaa. cashirka qof kasta cashirkuu rabo ha iisoo diro waa sameynaa insha Allah. yaa la iloobin subscribe iyo like yaa la iloobin. saxiibadiinana la sheegi garaya. Marka sidaa ujeediin wax dhan waa soo dhaafay intaa maroona. haddana waxaa isku dayeynaa recovery ma hayno laakiin sidaa ujeediin recovery ma hayno meeshaan ma dhaafi karo. Next haddaa dhahno wax kuma jiraan. Refresh haddaa dhahno wax weli kuma jiraan. Cancel aa dheheynaa intaa kusoo laaban. Memory-ga noo hare. Memory-gaan ma rabi marka inaan sameeyo. Memory-ga inuusan shaqeynin aa laga yaabaa laakiin waa isku dayeynaa. Dadka qaar waxaa laga yaabaa kanaa dheheynaa okay. memory problems aa la dhahay wax ma taabaneyno weli laakiin sidaa ujeediin wuu noo shaqeyni waaye. haddana waa ku laabaneynaa midkii ugu dambeysa waaye final. markaan waxaa isticmaaleynaa command prompt aa isticmaaleynaa. command prompt-iga waxaa idiin sheegaa 3 ama 4 siyaabood aa ku dayeynaa. 3 ama 4 siyaabood aa ku dayeynaa. midka laakiin kulli waa fiiriyey waxaa ii shaqeysa hal siyaa ii shaqeysay. marka adiga waxaa laga yaabaa inay kuu shaqeyso kulli. isku day dhib ma leh. waa kanaa wuuna keenay waa bobsiinaa. next aa dheheynaa repair aa dheheynaa. next aa sii dheheynaa haddana. Windows 8 iyo waa isku mid advanced option ay leeyihiin maahin inta kale waa isku mid. waa kanaa inta imaanay waxaan isticmaaleynaa midka koowaad bootstrap. waxaa dheheynaa /fix boot aa dheheynaa. markaas enter aa dheheynaa. successful on dhahay kadib waxaa dheheynaa shutdown /r waa diida inaa okay caadi aa u daminaynaa. marka restart aa dheheynaa ama haddii kale inta kana xireynaa kadib restart aa dheheynaa computerkeena. waxba ha taabanin cajaladda weli waa u baahannahay. waxba ha taabanin waa u baahannahay weli waa shaqeyni weyse taasne. okay haddana waa tegeynaa. intaa tegeynaa waa geleynaa haddana. markaa recovery option tagno waas arkeynaa. next aa dheheynaa. hadda sidaa ujeediin waa ku laabaneynaa haddana.
waxaan isticmaali karnaa haddana waxaan dhihinaa bootrec slash fix mbr dhehena successful u dhahay laakiin ma shaqeyna anigu ii shaqeyni waaye waa ka boodeynaa haddana mid kalaa jiro boot aa dheheysaa rec slash waxaa dheheysaa repealed pcd intaraa dheheysaa scanning uu ku dhahaa wax yar kadib wuxuu ku dhahaa identified windows installation zero the operation completed successfully laakiin midka ugu dambeeyo oo saxda ah intaa joognaa hadeertaan sidaa ujeediin labadii code waa idin tusay meeshaana imaaneynaa codekan ugu dambeeyo waxaa rabaa inaa idin tusiyo d aa dhehenaa 2 dhibic intaraa dhehenaa kadib intaa imaaneynaa dir aa qorinaa sidaa ujeediin boot mgrki waa kana boot mgrkan waxaa rabnaa inaan kasoo koobiyeyno cajaladii sidaa ujeediin meeshan boot startup exe sources waxaa waaye cajaladii aa gelino waaye markaas cajalada waxaa laga yaabaa d inay ku jirto mararka qaar waxaa laga yaabaa c inay isku bedesho oo systemkaada uu d ku jiro markasto fiiri meeshan wixii ku jiro dir qor halkaas wixii ku jiro marka hadeertaan meeshaana tegaynaa exit aa dhehenaa gadaala exit inaan dhaho waa ka xumahay marka hadeertaan sidaa ujeediin koodkaa qoreynaa exit aa dhahay koodkaa qoreynaa hadda marka waxaa dhehenaa kooda hore robo copy waxaa qoreynaa meeshii aan rabnay inaan kasoo koobiyeyno waxaa waaye d waaye dhibic waxaa dhehenaa slash kadib meesha aan rabnay inaan ku koobi gareyno oo c-ga ah dhibic aa dhehenaa slash aa dhehenaa maxaa rabnaa inaan koobi gareyno boot mgr aa dhehenaa enter aa dhehenaa so sidaa ujeediin copied one file waaye halkan saa ujeediin fileka la koobiyey waxaa waaye boot mgr sourceka oo laga soo koobiyey waxaa waaye d destinationka saa ujeediin waa c so marka shaqadeeni way dhamaatay meeshaan videoga uu ku eg yahay hadeertaan haddaa inta tagno sidaa ujeediin start aa dhahno ma taabanayno meel dhan waa fiirineynaa sidaa ujeediin wuxuu dhahay running testigan haddaa fahantiin waa markii lessonka koowaad aa bilownay marka hadeertaan sidaa ujeediin lessonka markaa bilaabayna memory test aa dhahnaa haddaa xasuusatiin hadduu bilaabay marka hadeertaan waa ka booday esc aa taabtay hadda saa ujeediin systemkeeni wuu soo laabtay successful waaye akhyaarta kulligiina waxaa idin rajeynayaa khayr marka saa ujeediin hadeertaan systemkeeni wuu soo laabanaa sidiisii kusoo laabanaa faylashi way yaalaan saa ujeediin hab kasto habyaal badanaa fiirinay way shaqeyni waayeen marka waxaa inoo shaqeysay laba habaa inoo shaqeysay sidaa ujeediin koodka ugu dambeeya oo robi copy ahaa faylasheeni dhan waa kuwanaa haddaa inta ku laabano boot mgrka ku jira haddaa dhahno computer systemka waa kana boot mgrka waa kana saa ujeediin marka akhyaarta kulligiina khayr aan idin rajeynaa marka isku daya qofkii su-aal qabana fadlan ha soo qoro comment ka bixiya like iyo subscribe na ha iloowina fadlan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu